soo ceeb weyn ma adigoo muslim ah dadkaagii layntooda in aad ku faraxdo ood sheegato oo aad nasri iyo guul ka soo qaado gaalkuna yidhaahdo waan ka xunnahay dadka meesha ku baaba'ay soo ceeb weyn ma soo fadeexa ma aha waase ninkii garanayo dareemayo waa inuu gaalku muujisto inuu dadkaaga u naxayo adigana aad idaacadaha ka tiraado gaalaan baabiyey murtadiin baan baabiyey ood ummadii ku tumato ilaahay baan idinku dhaariyay suura noocee bay u taala masaasaa jihaada mataasaa gaala la dagaalana mataasaa wadan xoreyn ah mataasaa muxuu ahay khayr iyo wanaag iyo guul lagu doonaya abadan suura qabiixa wa midintii sultan waxaad ka dhaxli doontaan aayaadka ilaahay ku been abuuranaysa yaa waxaas idinka cafiyahay yaa waxaa idinka cafiyahay yaad waxaas ula tegi doontaan yaad ugu sheekayn doontaan waxaasan islaam ugu gargaarayay haddaad islaam ugu gargaaraysan dadkiisi waa kuwa leh maxay ku waayeen gargaarka xaggeedsa ku aragteen islaam iyo dadka hafsan islaamka dadkii xambaarsanaa haddii aad u diideen la siino aawa islaamka keligiisa dhameeyeen oo mustaqbalka qof aan ku jirleeyay midin tirsan tahay waxa ka dhalanaya jamaacaadkan aqabisheen masaajidda lagu tukan waayo jamaacada la oogi waayo jumcada la imaan waayo shacaairta islaamka oo dhaawac u soo mujaahidiin hadda mujaahid ruux jihaadaya ma masaajidow jibiyaa ma dad masaakiina hawlaaya ma dadka abriyada oo bari magaydada iyo dilaa idinka laftirkiinaaba ka jawaabi kara marka ma dilo ruux muslima masaajid ma baaba'sho sida ku suntan diinteenna iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxaa jiray in talada iyo wax sheega ay lahaayeen dadka ay diinta tilmaamtay sida ahlul xal wal aqd laakiin musiibooyinka laga dhaxlay argagixisada waxaa ka mid ah culumayso sheeg dadkii Soomaaliyeed oo dhan ay waafduuban yihiin waxay la yimaadeen aragti ka fog islaamnimada laakiin ay kaga been abuuranayaan rumaynteena waxay isku haystaan diinta dadka inay ka xigaan waxayna ka dhigteen xeer u gaara oo ay u jari karaan cid kastoo iyaga ka aragti duwan horta bidaaqada ah qofkii dawladuhu waa gaal ama qofkii askarihu waa gaal oo qofku waraaqda gaalnimada isagu u jara waa manhaj khatiir ah oo Soomaaliya ku cusub oo muddo dhexe yimid oo dadka muslimiinta in la takfiiriyo ku salaysan manhajkaas marka ma ahan manhaj ka turjumaya sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo kitaabkii quraanka laba arrimood oo xambaarsan yahay khatar ah marka koobaad qofkan wuxuu gaalaynaa dad muslimiina aragtidiisa inay ka hor yimaadeen darteed isagoon wax daliila u haynin waa manhajkii khawaarijtu markoodii koobaad ay soo baxayeen ay xambaarsanaayeen oo laa xukma illa lillaah ay keeneen manhajkii xambaarsanaayeen wuxuu ahaa inay muslimiinta takfiiriyaan wixii aragtidooda ka soo horjeeda qofkuna hadduu qof muslima gaaleeyo sida xadiidka saxiixa uu tilmaama ama qof muslima uu ku tilmaamay inuu yahay cadow ilaahay inuu yahay asaga unbay gaalnimadu ku soo laabanaysa gaalnimadu meelaan dhici mayso asaga ayaa u dhow nabiga la weydiiyey sallallahu alayhi wasallam marka qofka raamiga oo qofkan dariskiisa gaalnimada ku ganayo qofkan la waa gaal miyaa gaalnimada u dhow mise midka la yiri gaal tahay arraami nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa u dhow midka gaalnimada asagu dadka ku gana